hay'adda BIC oo ka hawlgasha 4 degmo oo kamid ah gobolada Daawa iyo Liibaan ayaa tababar kor lagu qaaday garaadka aqooneed oo qabatay xoolo dhaqatada degmooyinka Mooyaale Hudad ee gobolka Daawa. Bashiir Cabaasi ayaa faafahinta warkan noo eegaya. hay'adda Project Concern International oo loo soo gaabiyo BCI oo ka hawlgasha gobolada Daawa iyo Liibaan ayaa kulan garaadkooda aqooneed kor lagu qaaday u qabatay xoolo dhaqatada degmooyinka Mooyaale iyo Hudad ee gobolka Daawa. kulankan oo ay soo agaasintay hay'adda BCI ayaa waxaa loo qabtay xoolo dhaqatada degmooyinka Mooyaale iyo Hudad waxaana kulankani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Daawa iyo kuwa degmooyinka Mooyaale iyo Hudad. mashruucan ayaana ka deegaan ahaan ka hawlgala 4 degmo oo kamid ah gobolada Daawa iyo Liibaan. haddaba muhiimadda mashruucani ayaa ah mid kor loogu qaadayo nolosha xoolo dhaqatada iyo sidoo kale xoolaha ay dhaqdaan isla markaasina looga faa'iideynayo dhanka sahaminta oo ah nidaam cusub oo kii hore ka duwan isla markaasina lagu ogaanayo goobaha dhuldaaqsimeedka iyo sidoo kale goobaha biyaha leh iyo goobaha aan biyaha lahayn ee abaarta ah iyadoo la isticmaalayo application-ka Afriskot oo ah nidaam cusub oo taleefanada gacanta lagu isticmaali doono. ugu horeyn kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Daawa ahna hoggaanka nabadgelyada ee gobolka mudane aadan macalin oo furitaankii kulankani ka hadlay ayaa sheegay ahmiyadda ay u leeyahay mashruucani xoolo dhaqatada degmooyinka Mooyaale iyo Hudad ee gobolka. waxaan u malaynayaa inuu idinku cusub yahay oo meesha aad ka bilaabi lahaydeen iyo waxyaabaha kale ay idinka qaldan yihiin baan u malaynayaa mooyaane gobolkan 90% waxa weeyaan waa xoolo dhaqato. haddii xoolo dhaqatadii barnaamij ma aragtay wax loogu qaban karayo ama lagu taakuleen karayo hay'addu ay soo qaabisay idinku laftiinni inaad wax ku kordhisaan fikirka la idinkaga baahan yahay iyo waxyaabihii hay'adaha ka maqan inaad ku kordhisaan baa la idinka rabayaa si ahaatee barnaamijkiina anfici lahaa deegaanka Soomaalida gaar ahaan goboladan hadda isxiga Afdheer Liibaan Daawa 90% waa xoolo dhaqato. marka barnaamij aad noo anfacaya maadaama uu yahay waa barnaamij aan aad u soo dhaweynayno waxyaabaha ka maqan ee fikirkaana aan weliba ku kordhinayno. sidaa daraadeed mar hadda magaalada lagu qabtay waxaan ka jeclaa anigu meesha geela joogo ee looda joogta ariga joogo dameeruhu ay joogaan farasyadu ay joogaan in shirka lagu qabto xoolahana lagu meesha shirka lagu qabanayo xoolaha lagu soo dhaweeyaan anigu aad u jeclaa. barnaamijka BCI ay wadato inaad soo dhaweysaan waan soo dhaweynaynaa waan taageersanahay haddii ilaahay yiraahdo. shirarkuna maanta ama barnaamijka loo qorsheeyay inaysan hal kaliya naga noqonin weliba magaalooyinka waaweyn noqonin tuulooyinka laga dhigo ayaan soo dhaweynaynaa. dhinaca kale maareeyaha hay'adda BCI mudane Siyaad Cadays iyo sidoo kale wakiilka hay'adda BCI ee degmada Mooyaale mudane Mustafa Cabdi oo warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida SRTV u waramay ayaa ka warbixiyay mashruucan isla markaasina sheegay ahmiyadda uu leeyahay 4 degmo ee kamid ah deegaanka ay ka hawlgalo mashruucani. kulli maanta halkan waxaan isku nimid xaflad furitaan mashruuca la Africa Scout. marka leen Africa Scout waa mashruuc software loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada gaar ahaan sahankii loo badal digital system. awal dadka reer guraaga waqti fara badan sahanka markii xoolaha meelaha daaqa ay meel biyaha ama daaqu jiray geen jireen waqti fara badan dhaqaale fara badan ayaa ku lumi jiray. hadda hay'adda maxay soo kordhisay nidaam software loo aqaana Africa Scout. Africa Scout marka muxuu ka dhigan yahay waa system software oo sahankii loo badal digital system. tusaale Soomaali region ahaan hadda waxaan ka bilownay gobolka Liibaan iyo gobolka Daawa. Liibaan tusaale Filtu iyo Dekasuftu iyo gobolka Daawa Mooyaale iyo Hudad oo maanta tusaale xafladda launching oo furitaanka gobolka Daawa aan ka sameynay degmada Mooyaale. runtii mashruucan reer guraaga faa'iidooyin fara badan u yeelan doona. maxaa ka mid ah faa'iidooyinka tusaale awal dadka markay sahanka u baxaan dhaqaale fara badan waqti fara badan ay maartay ka lumi jiray
hadda laakiin ayagoo gurigooda jooga ayagoo mobile smartphone isticmaalayo inay ogaadaan meesha xoolaha geen lahayn meesha waraha ay biyaha ku jiraan tusaale sida midda kale oo dheeriir uu mashruucan leeyahay maxaa ka mid ah mashruucan sidii Facebook camal information la isu gudbin karaa tusaale cudurka meelaha cudurrada ka jiraan haddii colaad ay jirta tusaale ruux markuu commentiga ku qoro isla dadka isticmaalayo dhan ayaa marka xogti arkay marka arrintaas marka runtii nin walba asoo gurigiisa jooga inuu xogti cudurka xoolaha haday noqoto xogti daaqa haday noqoto xogti biyaha haday noqoto inuu fadhigiisa ku helo madaxa xafiiska waxbarashada degmada Hargeysa iyo gudiyada waalidiinta waxbarashada ayaa soo kormeeray dugsiyada